waxaan ahay magacayga xasan maxamed cabdilaahi buux waxaan dhaqdaa shinnida horta intii aanan bilaabin shinnidani dhalinyarada aad bay waxaan kuugu tahriibi jirtay oo badaha ugu daadan jireen ani laftaydu mar baan ku fikiray inaan xitaa iska dhoofo laakiin kadib waxaan ku fikiray inaan sameeyo ganacsi ku cusub dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waana sameeyay waana ku guuleystay shinnidu wataa boqoradiina gacanta gaarka aan ku hayo shinnidu markaad aragto iyadoo meel fadhida ama meel ku jirta aad la soo baxdid aad bogoska ku ridid waxay ku jiraysaa muddo 3 cisho ay ka maxbuusnaanaysaa boqoradaasi ama 7 cisho wixii ka badan boqorada waad ku sii deynaysaa kadib waxay bilaabaysaa inay malabkii ku diyaariso waxayna ku diyaarin kartaa malabka shinnidu hadba qaabka ay tahay shinnida aadka u badani waxay qaadanaysaa 7 maalmood ama 8 maalmood shinnidu laakiin haddii aad u yar tahay bil bay qaadanaysaa bishaasi laakiin waa inaad ilaalisid caafimaadkeeda inay caafimaad qabto iyo inay xanuunsanayso waa inaad kala ilaalisid waxa laga yaabaa inaan hadda wajigayga arkin waxa saay ugu xunsan waxa weeye waa shinnidii oo kacsan ma sha Allah garanaysaa waxay ka tahay xasaasiyad bay ka qabtaa in la soo dhax galo waliba xilliyada caynkan kala alxamdulilah wallahi bishii hore iyo bishan aad bay u fiicnaan inkastoo bishii kasii horeysay aan waxba lahayn bishan aad bay u fiican tahay baashu ma sha Allah deedo ilaa meelaha waxaan ka soo saaray 150 kiilo oo u dhiganta $1500 waa bishan guda idin wana ilaahi mahdi aad baan ugu soo samray caqabado badan bay igu yimid waayo markaaba intaad xidid markaaba lagama dhargo waayo waa inaad meel dhigtid waa inaad u samirtid muddaad sugaysaa samad garan adi xitaa waxaan ku gaadhay in macnaha la yiri qof ay dhigta ka cuntay oo iyadoo dhigta ka qaniintay waxa ku yiri aan muddo 3 cisho u xidhnaa oo la igu yiri shinnidaadii bay ahayd wallahi shinnidaadii ma garanin moogta caqabadahaas oo kale way igu hor yimaadeen gacantayda ayaa qaadi doona si fiican uga soo horta marka aan shaariciyada la marayo ee ama aan shinnida soo qaadanayo oo kale dhar baan ka soo dhigtaa oo aan ku soo labistaa kadib markaan ku soo labisto dadku badankoodu waxay igu yiraahdeen talow muxuu ku soo akhriyay waxba kuma soo akhriyeen waan la saaxiibay dadka qaar waxay igu yiraahdeen waa ninkii shinnida la dhashay oo waa walaalkood waa shinniday walaalayiin bay yiraahdeen boogta